suldaanka guud ee beelaha awal sultaan xasan sultaan cabdiraxmaan iyo suldaanka guud ee beelaha garxajis sultaan cismaan sultaan cali madar ayaa gebi ahaanba waxay soo afjareen shaqaaqadii ka dhex taagnayd labada beelood ee walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay dhowaan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu qabtay hotel kaafi magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa gebi ahaanba la isla qaatay in arrintaasi la soo afjaro waxaanay dhammaanba salaadiintii iyo cuqaashii halkaasi ka hadashay ay fariin u dureen dadka walaalaha ay dirirtu dhex martay madaxdii kala duwaneed halkaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan nabadgelyo alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan baanu haynay daamanka oo aanu lahayn yay waxba dhicin haddii la isugu yimi maanta oo nalala qabtay cid kastoo u soo gurmatay waanu u mahad celinaynaa waxaanu ku baaqaynaa nabadgelyo waxaa la qaatay xabad joojin cid kasta oo uu quseeyo mid soo gurmanayey iyo mid jooga oo iminka qoriga sitay waxaa la qaatay xabad joojin waxaa ku xigi doona wadahadal iyo wixii la kala tirsanayo in turxaanta lagu dhammeeyo wadahadal iyo gole lagu dhammeeyo taa imaka maanta waan idiin ansixiyey midh kalena waan ansixiyey waxaa la yidhaha colaadda iyo dhibta imanaysaa burcun bay ka bilaabantaa wanaagguna burcu ka bilaabmaa taana maanta waxaan ogaaday ragga burco ku nooli inay raggii wanaagga yihiin waxaa kaloon ogaaday madaxweynayaashii somalilan iman jiray 3 ka midii inay burco ahaayeen warba halshii wixii ima ka dambaysan waan isku soo wareejinaynaa dadka u miyiriya si wanaagsan u dhaqa annaguna waa idin taageeraynaa labadaa qole iskaga yimaadeena dad wada dhashoon meel ku kala tegeen weeye waxa weeye ninka khaldanna waa inuu khaladkiisa qaato halkan labada beelood nabada waanu qaadanay haweeney dad badan baa muxuuhaayeen maqlayo dhegaysanayeen nabadaa waanu qaadanay waanu aqbalnay xaggayaga waa ka diyaar waxaan kaloo muxuuhaayey ku darayaa labada beelood ee muxuu hawsha u taagan tahay waa habarla maanta muxuu ahaayey ballaadhan ee lafdhabarta somalilaana min hulaanji ilaa berbere ka wada yaalla dhowrka boqoloo sano wada yiilay isku midkaa dad iyo duuya aanay u kala soonayn aad iyo aad baan muxuu ahaayey ardaayada nabadaa u soo dhaweynaya kelmadda aynu iska odhanay waxa weeyaan waxaanu maqashiinaynaa beelaha garxajis iyo beelaha habar awal dibad iyo gudo in laysla qaatay nabad in la qaatay xabad joojin in la qaatay in gogol lagaga wada hadlo ciddii wax tabanaysa in la wada qaatay inaan cidi inoo garnaqina aynu caqligeenna ku dhammaysano in la wada qaatay in laysu garaabo oo ciddii wax laga tirsanaya ay garawdo waxaanu leenahay waxaanu qaadanay sidaas salaadiinteeda guud soo jeedisay ay noo guddoominayaan ay noogu xidhayaan waxaa la yidhi laba kuma badamin iskase ahaatay laba kuma badamin iskase oo mar qura intii aan u guuraynay aan u gudaynay aan erey xun odhan naga horbeeran waa istilaynaa namay odhan oo maanta yeeli mayna may odhan idinkaanu idinku daraynaa may odhan markasta waxay dhahaan nabadda waa doonaynaa nabadda waa doonaynaa walaalnimada waa doonaynaa wax kasta waa dhigaynaa laakiin xalliya intiinan baa gacanta ku hayso oo imika maanta qaaday nabadde cudud iyo xoogba waydinla dhinac taaganahay cidda qaldan gacanta idinkula qabananahay inteenini waxaa idinka baraya inaad qalbiga isu sii daysaan waxaynu madashan ku guddoonsannay oo ku qaadanay oo ilaahay la kaashanaynaa nabad labada beelood maanta halkan madashan cid walba ku gaadhsiinaynaa oo cid walba maxayday ugu sheegaynaa sidii suldaanku sheegay saacaddaa laga bilaabo maanta laga bilaabo dhammaan dadkeenna inta ku abtirsata beelaha aan maanta maxayday halkan maxayday ka sheegayno ee salaadiintayada guudna guddoonkii aanu u xidhayno waxaanu u sheegaynaa oo gaadhsiinaynaa nabad baa in la qaatay nabad in la qaatay xabad joojin in la qaatay
wixii maanta ka dambeeyana cid kasta oo fadqalala samaysa oo nabaddaa iyo go'aankaa la qaatay waxyeello ku samaysa ama jebisa labada beelood iyagoo isku leeyahay meel uga soo wada jeedsanaya ilaahay waxaynu ka baryaynaa dabkaa shidmay in ilaahay naga baktiyo intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay maxay ahayd ha u boogadhado ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu naxariistiisa ku bogsiiyo labadeenna dhinac khaasatan habar yoonis iyo ciise muuse ciidamadiinna meel kastay joogaan maanta laga bilaabo saacadda inamadiinnii waa inaad meel aanay iska gaadhin oo makhaayad aanay isugu iman oo meel deegaan aanay isugu iman intaynu nabaddaa daadajinee dhammaynayno inamadaa ha la kala geeyo meelo aad u kala fog nabaddii saasay inoogu xidhantay shirkina saasuu inoogu xidhan yahay bashan sharfan ee awal iyo garxaj isku dhan yihiin labeentoodii waxgaradkoodii culimaaudiinkoodii mujaahidiintoodii odayaashoodii waxaynu ku guludnay shaqaaqadii ka dhacday gobolka togdheer gaar ahaan hawdkiisa ayaynu nabadgelyadii ku guludnay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaynu qaadannay ceebtii inaynu iska maydhno maalmahanba la wadwaday hawada walaalnimadeennii sharafkeennii gobonnimadeennii inan iyo abtigii lahaa inan iyo walaalkii lahaa inan iyo inaadeerkii lahaa xididnimadii soo jireenka ahayd boqolaalka sanno arrintii xadgudubka ku ahayd inaynu ku dhaahinay maanta 18 bay tahay madasha tanburco ayaynu isla qaadanay allahu akbar halkaasaynu ku aasnay arrintaasi way inoo guntan tahay haddaanu salaadiintii guud nahayna hadalka iyaguma badne waa kow ee laba maaha bal gacmaha aynu taagno inaynu arrintaasi maanta halkaa ku dhaahino insha allah bilbillahi kariim cid alla cid inoo maqan maanta ma jirte allahu akbar allahu akbar